haweenka ka tirsan ciidamada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa soo gabagabeeyay tababar ay bixinayeen ciidamada Britain. Tababarkan ayaa ujeedadiisu ahayd sidii haweenka ciidamada ka tirsan ay ula shaqayn lahaayeen bulshada ku nool dhulka laga saaray kooxda Al-Shabaab. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Xuseen Bare. xafiiska warbaahinta ee howlgalka nabad ilaalinta Soomaaliya ee Midowga Afrika ee AMISOM ayaa shaaca ka qaaday in 12 haween ah oo ka tirsan ciidanka Soomaaliya iyo 20 kale oo ka tirsan ciidamada AMISOM lagu soo gabagabeeyay tababarkan magaalada Muqdisho. haweenkan saraakiisha ah ayaa loo tababaray qaabka ugu habboon ee ay iskula howlgeli karaan ciidamada iyo rayidku. arrimaha kale ee lagu tababaray ayaa waxaa ka mid ah ilaalinta dhaqanka Soomaaliyeed iyo sida ay ula macaamilayaan haweenka. sidoo kale saraakiishan haweenka ah ayaa la baray qaabka looga hortagi karo loona xakamayn karo kufsiga iyo xadgudubka loo geysto haweenka. arrimaha kale ee xusida mudan ayaa waxaa ka mid ah in la baray saraakiishan qaabka loola macaamilo dadka ka soo goosta kooxaha xagjirka ah. Colonel Nick Morton oo ka tirsan ciidamada boqortooyada Britain ayaa u sheegay saraakiishii haweenka ahaa ee tababarkan dhammaystay in looga baahan yahay in ay la shaqeeyaan haweenka rayidka ah isla markaana ay bulshada uga faa'iideeyaan aqoontii ay barteen. You've done the course and you now have the skills, but it's now for you to go forward and actually talk to and engage with over 50% of the population that are female. Shaqada adag imika ayay idiin bilaabmaysaa. waxaad dhammaysateen tababarkii, waxaad imika leedihiin khibrad, waxaana la idinka rabaa inaad hore u socotaan oo aad la hadashaan lana shaqaysaan in ka badan 50% bulshada oo haween ah. sidoo kale Major Pete Thompson oo isaguna ka tirsan ciidamada boqortooyada Britain ahna khabiirka tababarkan bixinayay ayaa sheegay in ay muhiim tahay in lala xiriiro bulshada si loo ogaado baahida ay qabaan xalna loo helo. The aim of the course was to prepare the students so that they can go out onto the ground on a mission, be that whether they're military or whether they're police, and be able to go out and engage with the female and the youth members of the population. Because we feel as though, the guys can talk to the guys when they're on the ground, but sometimes there's difficulties extracting the information and finding out what the real need is. Ujeedada tababarku waxa uu ahaa in dadka tababaranaya loo diyaariyo sidii ay ula shaqayn lahaayeen haweenka iyo dhalinyarada Soomaaliyeed, isla markaana ay xog uga heli lahaayeen si loo ogaado baahida dhabta ah ee haweenka iyo dhalinyarada, taasi oo sabab u noqonaysa horumarka mustaqbalka. isuduwaha arrimaha haweenka ee booliska AMISOM Stella Sedame ayaa xustay in tababarkan uu fursad u siiyey in ay kasbadaan khibrad iyo xirfad ay ku hirgelin karaan ujeedooyinka uu ku salaysan yahay howlgalka nabad ilaalinta ee AMISOM iyo kobcinta aqoonta booliska Soomaaliyeed. The reason for the course is to help us as female engagement teams to assist our women. So we are always there to support the women. And also the course has incapacitated us, help us so much. Tababarkan waa uu na caawiyey haddii aanu nahay kooxda qaabilsan arrimaha haweenka. waxaanu fursad noo siiyey inaanu caawinno saraakiisha ciidanka Soomaaliyeed sidii ay ula falgeli lahaayeen bulshada. waxaanan kororsanay aqoon iyo xirfad. Nasteexa Xasan Axmed oo ka mid ah saraakiisha Soomaaliyeed ee tababarkan ka qayb qaatay ayaa aad uga faallootay waxyaabaha ay ka barteen tababarkan oo ay sheegtay in uu muhiim u ahaa shaqada ay bulshada u hayaan ciidamada ammaanku. waxaan ka faa'iiday inaan helo kalsooni, macnaha inaan ka mid noqon karo female engagement team marka hore. tan labaad casharo badan oo waxaa jirtay oo ani wax badan iga caawiyay, sida cashar ku saabsanaa Somali culture. also wuxuu casharkaas wax ka caawiyey AMISOM maadaama Soomaaliya ay nabad ilaalin u joogto inay wax ka bartaan dhaqanka Soomaalida maadaama ayaga Soomaali peacekeeping u sameynayaan. ciidamada boqortooyada Britain ayaa kala shaqeeya AMISOM hirgelinta tababarka saraakiisha ciidanka ee Soomaaliya iyo kuwa AMISOM, taasi oo qayb ka ah dadaalka lagu nabadaynayo Soomaaliya. naga dhageysanaysaana waa VOA. nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. kadib muddo toddobaadyo ah oo ay la xarbinayeen biyo badan oo ka barakiciyay guryahooda ayaa dadka magaalada Beledweyne waxay haatan bilaabeen inay si yar ah ugu laabtaan guryahooda, iyadoo qaar ka mid a dadkaasina ay ka cabanayaan kaneeco xad dhaaf ah
oo hadda dhibaato badan ku haysa. wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan kasoo diray magaalada beledweyne. magaalada beledweyne biyihii fatahaada webiga ee aadka u badnaa waa ay ka baxeen. dadka qaarkiina waxa ay bilaabeen in dib guryahooda ay ugu laabtaan, laakiin saameynta ay biyuhu geysteen barakac oo keliya kuma eka ee waxaa burburay wadooyinkii magaalada, guryaha iyo musqulaha. xaafadaha biyodega ah waa in matooro looga saaraa, durbana waxaa biyaha ka dhashay kaneeco. dadka oo dhanna dhaqaalo ma wada heli karaan oo ay intaasi ku maareeyaan. maxamed cabdulle shaati waa guddoomiyaha xaafadda Oktoobar. biyihii sidii bay ugu jiraan guryaha iyo wadooyinka u yaalaan. wax laga qabtay oo macnaha tacaal oo looga badbaadi karo muxuu ahaa cudurrada ka dhalan kara looga badbaadi karo laga qabtaan musqulihii iyo guryihii sidii bay isku dhex yaalaan. ma lagu soo laaban karo, mana u dhowo wax lagu soo laabto. xaafadda biyaha ku jira aad u badan yihiin, laakiin dadka qofka soo laabanaya wuxuu isku celiyey meeshii uu joogay oo cid 3 cidood 4 cidood cid kor saarneed culeys oo meeshaas isku celin karin ayuu ugu soo laabtay. wanaag ka muuqda gurigaas ma ugu soo laaban. haddii aan wax laga qabanna biyaha guryaha yaala iyo dhibaatada ka taala haddaan wax laga qabanna wax ummadda jiro weyn baa ka bilaabanaysa. waxaan ka codsanaynaa qolooyinka dhaqaalaha haysto oo wax maamulaya inay awoodda saaraan guryihii oo macnaha dadkii kusoo noqon lahaayeen. dadkiina way soo noqonayaan, iskuulaadkaa furmay, socodkii oo laamiga biyihii ka dhammaadeen. dadkii inay soo laabtaan intay meel bannaana deganaa lahaayeen waxay ka doorbidayaan inay qashinka soo dhex galaan. wallaahi xaafadaha ku tiimbo iyo xaafadaanada biyihii sidii bay ugu jiraan. hadda suuqa qudaarta oo hadda aan sheegaynay waa 1 kilomitir oo isku weera oo biyo kusoo go-een oo webina haysan, meel kale u baxaanaysa jirin. in la bixiyo ay rabaan in la bixiyo maalin si kale aan loogu badbaadi karin. intaasoo cidoodna way dhex deganeed. meelaha ay ka soo dhowaadeen oo biyo waa ka baxeen laleeyahana waa meelo gurigii ay ku jiraan, laakiin jidkii la maraya xoogaa ay ka sikadeen, gurigii way ku jiraan. dadkiina waa soo gelayaa. dadkaa marka waxaan uga digayaa inaysan soo gelin intii wax laga qabanayo oo biyahaas xal loo helayo oo muxuu la buufinayo ama laga saarayo matoor loo keenayo inaysan dadku soo degin ayaan ka codsanayaa dadka soo degaya guryaha iyadoo hadda dhibaatada jirtaan aan ognahay. dadka dhaqaalaha haysta ee guryahooda dib ugu laabanaya ayaa waxay iibsanayaan sunta cayayaanka oo iyada lafteeda ay dhici karto in ay saameyn caafimaad yeelato haddii si qaldan loo isticmaalo. cabduqaadir aadan maxamed carbuudo waa ganacsade iibiya sunta cayayaanka. dadka ceel jaalle ku laadeen waxa jirto meelihii biyihii ay ka baxeen, waxaa ka dhacay xoogaa boosaneeradii iyo maxaan ku sheegaa biyihii meesha ku go-een. waxaa ka dhacay cayayaan fara badan oo kaneeco iyo maxaan ku sheegaa tasxi, waxyaabo badanaa ka kacay. marka dadkii sidaas markay ahaayeen ayaa waxaa dhacday in kaneecadii laga buufiyo. annaga hadda waxaana laka iibsada waxaa u badan daawada cayayaanka oo sida midda kaneecada, midda oo maxaan ku sheegaa oo cayayaanka ay disho, sida boosaneerada loogu shubo, koloriinkii inay iska shubaan meeshaas. oo maxaan ku sheegaa maadaama aynasa jirin hay-ado oo dawliya oo arrimankaas bulshada qaba kara aynasa jirin, annaga ganacsata ahaan waxaan u keenay daawooyin oo maxaan ku sheegaa cayayaankaas looga hortegi karo. gurigii lagu buufiyana maxaan ku sheegaa si weyn ayaa looga dareemo. cali faarax maxamed oo ka mid ah dhallinyarada magaalada ayaa tix yar oo ammaan ah waxa uu ku cabiray dadaalkii ay sameeyeen dadkii Soomaaliyeed ee gurmadka u soo sameeyey markii beledweyne ay fatahaadu ka dhacday. jinsigeena Soomaaliyeed jabadka soo joog waxa jaalla Soomaaliyeed jeesas kala jeed anigoo jijibino masna jifajifaynayn waa dadyo jidin aan u xilan jeer kastay tahay waa dadyo u jeel qabananay bixiyo jeebkiisa waa dadyo jamaal looga dhigay in is joojaan waa dadyo isjeenaaniyo oo dhaqan jihaynaahe waa dadyo isjecel guud ahaan jeer dagaal jirne sheeka aan jilayana ma aha jiinka antixay jirjiira anigoona gilin aan masaj jeejeesan webigan aroorto jabsaday dadka jaajaam dadka iyagu jawaabtay baxshan waan u wada jeedin jazaahumullahu bil khayr jamaca Soomaali. haddaba waa maxay waxyaabaha ugu daran oo dadka beledweyne ee dib guryahooda ugu laabanaya ay tahay in wax lagala qabto? waa kan Muumin Macalin. waxaan ka codsanaynaa 100% kaneeca iyo guryihiiyo dhiiqa wada buufis haddii wax la heli lahaa helikabtaryo ama wax buufiyo. xataa haddii guriga aad soo degtid gurigii kale laga maqan yahay 2,000 hal mar ka soo bixaysa saasa iskaga sii riibaysaa kaneecada. 100% ilaaha ma hadda iskale biyihii dhiiqada guryaha dhiiqa ma ahana wax kale ma jiraan. wadadii qashin wixii maamulka ahayna waa la kala mashquulsan yahay. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.